gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Beergel ayaa xukun ku riday rag la sheegay inay ka ganacsanayeen diinka xukunka raggaasi lagu riday gudoomiyaha oo sheegaya waxa uu yiri qodobka 28aad xarafka koowaad faqradda ta'ja waxa lagu xukumay midkiiba 3 sano oo xariga ciqaabeed oo aan iib lahayn iyo min 3 milyan oo ganaaxa oo la socda midkiiba maadaama dambigan ay qirteen laba xarigu waxa uga bilaamayaa maalintii la soo xiray bishuna ay ahayd 31 bishii koowaad 2018 saddex gaarigii diinka lagu siday ee lagu qabtay ee fitista ahaa ama dukaanka ahaa waxa lagu xukumay 3 milyan oo ganaaxa haddii lagu qabto mar dambe oo kale isagoo falkan oo kale ku jira oo faraha kula jira gaarigaas maxkamaddu waxay u xukuntay qaranka inuu la wareego oo loogu shaqeeyo dadweynaha iyo qaranka halkan daawadayaal waa maxkamadda degmada Hargeysa sida gudoomiyaha maxkamaddu sheegayna diinkan hadda halkan ku jira waa diin xorriyadiisa loo celiyay oo sidoo kale wasaaradda deegaanka gudoomiyuhu waxa uu baaqay inay diinkaasi ay daryeelsho gudoomiyaha waa arinta ka hadlaya waxa uu yiri diinkan la qabtay ee gacanta shanta dambiile waxa lagu amrayaa wasaaradda deegaanka inay daryeelkiisa la wareegto diinkan maanta laga bilaabo oo taariikhdu tahay 13 bisha 2 2018 iyadoo sharciguna xorriyadiisa u celiyay diinkan laga bilaabo maanta oo bishu tahay 13 bisha 2 2018 maxkamadda degmada Hargeysa runtii oo waqti badan gelisay baaritaan badan gelisay gudoomiyaha degmada Hargeysa maxkamadda Hargeysa ayaan gaar iyo xiraaliyaha aad baan ugu sii mahadnaqay la shaqeynayay ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala mahadle ilaahay baa mahadle maanta waanu soo dhaweynaynaa waanu ku faraxsanahay xukunkan lagu riday dibgeystayaashii u geystay diinkan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku beeray koonkiisa runtii waa asad qaran ku leeyahay Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel maxkamadda degmada Hargeysa